gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeka Ismaan ayaa ka qayb galay xilitaanka koobka kubadda cagta ee loo qabtay dugsiyada sare ku yaala gobolka Awdal asay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal koobkan oo ahaa mid xiiso badan isla markaasina heerar kala duwan soo maray waxaana ciyaartii kama dambaysta isugu yimid dugsiyada sare ee Waaberi iyo Aadanisa taasoo ciyaarta labiye bareeguusha ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca dugsiga Aadanisa waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay madaxa xiriirka ciyaaraha u qaabilsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal wuxuuna ka sheekeeyay marxaladii kala duwan oo koobkaasi soo maray maamulayaasha dugsiyada sare Waaberi iyo Aadanisa ayaa dhankooda eegna waxay ka hadleen munaasabadda xiritaanka tartanka kubadda cagta loo qabtay dugsiyada sare waxayna yiraahdeen ay isku birinayeen gobolada waxaan halkan xamaliyo ugu dirayaa madaxa xafiiska imtixaanaadka heer qaran gudoomiyaha waxbarashada gobolka macallimiinta iyo maamulayaasha labada dugsiga maanta ciyaaraya iyo macallimiinta iyo maamulayaashii iyaguna ku soo dhex jiray ciyaarta waqti nasiib ku helin inay maanta finalka yimaadaan runtii waxaan halkan ka hambalyeynaya oo inaan dhawanahayn mas-uuliyiinta heer degmo ee degmada degmo oo nala shaqeeyay muxudiin iyo maayarka iyo taliyaha ciidanka waxaan oran lahaa kulli badiyaabo waa bahdeen labada iskuulba kulli waa labadeen iskuul Cabdullaahina de waa inaan glass midahan oo saaxiibka ahaa hadda badiyana kulli waa hambalyeynaya kulli hadan badiyana way hambalyeyn ma filaya waxaan ilaaweyn kulli isnaadi xaqiiqatan muddo badan ka soo shaqeeyay jeeko xaqiiqatan gudoomiyaha waxbarashada halgan badan ugu jira sidii tayada waxbarashada iyo extracurricular activitieskaba aad loogu xoojin lahaa iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka maanta inoo soo horay inuu halka inoogu yimaado waxaan leenahay kulli muddo soo socday waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay noogu soo gabagabeeyay nabad iyo turxaan la'aan maantana waxaan filaynaa in labada kooxood ay isku soo hadhay oo Aadanisa iyo Waaberi iskuula waxaan filaynaa labada kii badiyaabo waa bahdeen maamulaha waan u mahadcelinayaa Mr. Xasan Heebaan saaxiibkay haduu badiyo iyo haddana anagu badinaba wax weeyaan wax aad baan isku hambalyeynaa runtii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeka Ismaan ayaa usagna hadalka qaatay waxa uu sheegay ka wasaaradda waxbarashada ay diyaar u yihiin inay markasta dhiirigeliyaan dhalinyarada si markaasi garaadkooda kor loogu qaado halkan gudoomiyaha tartankan u dhaxeeyay 8 dugsiyo afarna dugsiyada gaarka ay yihiin afarna ay yihiin dugsiyada markaa dawladda marka alxamdulillah maanta waxa isku soo baxay laba dugsiyo dugsigii midna waa dawliga midna waa gaarka laakiin markaan wasaaradda waxbarashada nahay labaduba isku kaaya mid kii badiya iyo kii kale badin iyo in koob la kala qaado ujeedadeedu ma ahayn laakiin ardaydu isdhex gasho isku bartaan extracurriculumkii ama ay ku saaxiibaan oo dugsiyadu isku xidhnaadaan ayaan ugu ujeedada ahayd waxaan aad uga mahadcelinayaa waxa tan qorshihii wasaaradda waxbarashada ee 3 biloodka ugu dambeeyay ee December naga eeka ujeedadaasna waxay wasiirkii hore iyo agaasimaha guud waxa ka go'nayd inaan sameeyno tartan ciyaareed iyo markaa debate ama kediska qorshaha waxaan ugu tala galnay insha Allah teeramka cusub inaan dugsiyada sarna u qabanno dugsiyada hoose dhaxana u qabanno oo sidan oo kale ay isku dhex galaan gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa waxa uu yiri yaan mahadinayaa mar labaad waxaan mahadinaynaa runtii maamulka waxbarashada gobolka oo runtii si weyn iskaga xil saaray in hawshaasi ay hirgasho waxa kale oo si guud u hambalyeynaya runtii wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasiir ku xigeenka iyo dhammaan agaasimayaasha waaxaha oo hawshan runtii muddo ka shaqeynayay arintiina hirgashay ciyaaruhu sidiisaba al-aqlu saliim fi jismu saliim waati ahayd mahmaahdu sidaba ciyaartu qofka bini'aadmiga wax badan bay bartaa sabirkay bartaa waxyaalaha ugu waaweyn waxyaalaha xun fawaaxista bay kala dagaalantaa sida balwadaha iyo oo ugu xun tahay balwada qabyaaladu daraagiska waxa soo dhan horta ciyaaruhu ka daweeyeen marka waxaan tagale ardayga waxa u sahlaan inuu jeclaado duruustii way markuu maskaxdiisii waxa u dhaxaynaysaa inuu kolla sportska ciyaaro marna uu xaqristo wasaaradda waxbarashaduna aad waxaan oran karaa waa fursad dahabiya oo runtii ay dalka dib ugu soo nooleeyeen sidoo gudoomiyuhu sheegayna waxa la mid ah kadisyada iyo wixii la mid ah Maxamed Xasan Ismaaciil Bere wararka telefishinka Ariel magaalada Boorama
adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida